Allah ha u naxariistee saxafiyad Hodan Naaleeye waxay ka mid ahayd dadkii ku geeriyooday qaraxii xalay lala beegsaday hotel Madiina oo loo yaqaan hotel Qasqasay ee magaalada Kismaayo. Saygeeda Fariid oo mar noqday wasiir ka mid ah maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii qaraxaasi ku nafwaayay. Hodan Naaleeye waxay ku dhalatay magaalada Laascaanood sanadkii 1976. Waxay ka soo jeeday qoys ballaaran oo ka kooban 4 wiil iyo 7 gabdhood, iyadoo 7 sano jir ah sanadkii 1983 ayay iyada iyo qoyskeeduba qaxoonti ahaan ku galeen dalka Canada. Life in Mogadishu is not all about beaches. Sometimes you just gotta walk around the district and meet some funny people. Waxay deganayd magaalada Edmonton oo ka tirsan Alberta ka hor intii aanay u wareegin magaalada Toronto sanadkii 1992. Hodan Naaleeye waxay waxbarashada dugsiga sare ku dhamaysatay macadka West Hamber, halkii heerkeeda koobaad ee jaamacadda ay ka soo qalin jabisay jaamacadda Windsor. sidoo kale waxa ay baratay oo ay shahaado ka sidatay culumta saxaafadda. Allah ha u naxariistee Hodan Naaleeye waxay ahayd aasaasihii, abuurihii iyo wartabiyihii TV-ga Integration TV oo ah TV-gii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee afka Ingiriisiga wax ku tabiya. Hodan Naaleeye waxay lahayd khibrad shaqo ilaa 13 sannadood ah, waxaanay hore uga soo shaqaysay telefishan iyo raadiyo sida taariikhdeeda ku xusan. Waxay la soo shaqaysay dhowr TV oo uu ka mid yahay American Idol, iyadoo soo saari ka ahayd barnaamijyo dhowr ah oo ka soo baxay telefishanno kala duwan. Sidoo kale Hodan Naaleeye waxay madax ka noqotay hay'adda isdhexgalka dhaqamada. Allah ha u naxariistee 34 sano oo ay ku maqnayd dalka Canada waxay go'aansatay inay dib ugu soo laabato dhulkeeda hooyo iyo dadkeeda. Hodan Naaleeye waxay 2011 bilowday barnaamijkeedii wacyigelinta bulshada. inuu timidare ka shaqeeyo inuu macna fanni yahay macna oo dadka oo shacabta badan u yahay sidoo u sheekayay ma sheekaysan u sheekayay nidaam macna uu imaado u sheekaya cabaaru jeedo waxaanay ku tabin jirtay afka Ingiriisiga. Naxariistii janno Allah ka waraabiye intii aanay geeriyoon ka hor iyada oo ka hadlaysa meel fagaara ah ayaa Hodan waxay ka hadashay waxa ay jeclaan lahayd in lagu xasuusto. Dreamkayga wuxuu yahay ma haba inaan caan noqdo oo lacag sameeyo waxaa rabaa maxaa ka tagaysaa markaa dhimatid, maxaa kugu dadka ku xusuusanayaan. insha Allah hadday dadka ugu xusuustaan waxaan ahaa qof dadka Soomaaliyeed iska jecel inay walaalo noqdaan, inay noqdaan dad maanta fahmi kara wadankeennii haddii anaga waxba ka tarin yaa waxna taraya. hadda 2 wiil baan korinayaa, af Soomaali kuma hadlaan, anigiiba haddii mar dhaweyd baan af Soomaali si fiican sii baranayaa. haddaba maxaa soo socda next generation ka kale, maxay dadkeeni ku dambeyn doonaan, intaasaan isweydiiyaa. So insha Allah YouTube ka marka Google la geliyo Somali people haddii wax wanaag soo baxaan inta igu xusuusta. Allah ha u naxariisto ee xalay oo bishu ahayd 12 Juulaay 2019 Hodan Naaleeye waxay ku geeriyootay hotel Qasqasay ee magaalada Kismaayo. How old is he? halkaasi oo weerar qarax ku bilaabmay ay ku qaadeen xarakada Al-Shabaab oo ka dagaalanta Soomaaliya.